gudoomiyaha hay'adda dhowrista tayada Somaliland Muuse Xasan Xaaji Yuusuf oo howlo shaqo ku jooga degmada Sheekh ee gobolka Saaxil ayaa booqday jaamacadda xanaanada xoolaha ee degmada Sheekh. gudoomiyuhu intuu halkaasi ku sugnaa waxa uu kormeer ku sameeyay qaabka ay u shaqeeyaan qalabka shaybaadhka cuntada iyo caanaha oo dhawaan la keenay jaamacadda. مسؤولينta jaamacadda xanaanada xoolaha ee degmada Sheekh oo ugu horeen halkaasi ka hadlay ayaa gudoomiyaha soo dhaweeyay waxaana uga warbixiyeen sida ay u shaqeeyaan qalabka shaybaadhka ee yaala jaamacadda. waxaan aad iyo aad ugu mahadinaynaa booqashada ay nagu yimaadeen Somaliland Quality Control Commission. maanta waxa markay noo yimaadeen waxaan soo tusnay shaybaadhkii imtixaan muxuu ahay Quality Control shaybaadhka ama food lab leeyahay oo lagu baaro wax alla wixii imtixaan Somaliland laga dhoofin karo iyo wixii la soo dejin karo ahaato raash cunta ahaato sharaab ahaato dawo waxyaabahaas iyo meeliye lagu baaray si loo baaray ayaa matana soo wada aragnay marka runtii aad iyo aad ayaan matana ugu faraxsanahay inaan amba qaadno heshiiskii hore oo haddana si dardargelino oo si matana mustaqbalka aysan u imaanin Somaliland wax aan soo marin muxuu ahay am certification oo ka soo qaadanin muxuu ahay commissionka Somaliland Quality Control marka anagana matana waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan la shaqeyno. I would like to welcome the chairman of the Somaliland Quality Control Commission, and we are looking forward to the collaboration that we are trying to forge between the two institutions. We know the importance of the quality control and the very important role that SQCC is going to play. And for that reason, we look forward to supporting SQCC. We look forward to working with the SQCC. Muuse Xasan Xaaji Yuusuf gudoomiyaha hay'adda dhowrista tayada Somaliland oo ugu dambeyntii halkaasi ka hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyay qalab cusub oo ay hay'addu soo iibsatay kaasoo lagu baari doono cuntooyinka dalka dibadiisa laga keeno. aanu rajeynayno insha Allah inaan ka wada shaqeyno shaybaadhkaasoo lagu baarayo cuntooyin badan oo muxuu ahaa wadanka gudihiisa soo gala oo rajeynayno insha Allah inaanu si dhaqso ah ama si dhow aan uga hawlgali doono sidii loo baari lahaa ama halkan loogu baari lahaa cuntooyinka kala duwan haday yihiin muxuu caanaha haday yihiin hilibka haday yihiin muxuu biyaha iyo sharaabka iyo waxyaabo noocaas dhawaan insha Allah waxaan rajeynaynaa inaanu soo bandhigno habkii siyaasadii ama heertayeedkii standardskii lagu eegi lahaa ama lagu cabiri lahaa cuntooyin ay ka mid yihiin bariiska baastada muxuu ahaa caanaha kala nooc ah caanaha kuwii muxuu ahaa powderka ah iyo kuwii kale ah. Jaamac Salebaan Cumar TV-ga caalamiga ee Bulsha TV magaalada Burco.